أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaa ka hadlaya Nuur Dhinbiil dhammaan ummadda Soomaaliyeed dhawahooda ku dhici doono iyo beelweynta reer Sheekh Muuse aan halkan alf leyl oo leyl uga jeediyo waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan waagii baryaaba waayale gabalkii dhacaana waaga berigiisa wuxuun bay dhagaha ku maqlaan wareer Sheekh Muuse saddex masalo waan maanta idin oranayaa masalada koowaad waxay tahay ha arrin daraanina arrin daridu waxay ka timaadaa ku arrimin maayo kulana arrinsan maayo ku talin maayo kulana tashan maayo war arrintaasi iska jira cawaaqibkeedu wuxuu dhalaa ayaan daro waana kelmadda labaad een halkan raba inaan aad idinku waadixiyo ayaan daradu waxay qofka asiibtaa ninkaad kabihiisa tolayso markuu kafantaada ku maqan yahay waa ayaan daro shabeel nin rabaystay riyuhu ka cunaayee ma isku kay ragoy rafiiqaygii marka ku haleeshana waa ayaan daro baadida nin baa kula dayday daalna kaa badinay barteed inaad heshana doonahayn daa'in abidkeede dadkuna moodayaan dul walaalo wax u daasoonayna waa ayaan daro markay taasina kugu dhacdo ninkaad dili ninkaad dagi ninkaad daban u qoolayso والله يسوق على الدادية يانو خادين ومنافق نمدة وين ريشك مصمات هالشيء وأمريكاوي والشباب اللي ربا يستريوه كعنا رفيقي نيبا يسوكي الرغي أرد ما أتاجيه تلذذ أنك نمسكنا أرين دريدا إذا هيستا أيام دريدا سيدين دشي ورمانتها أرد درانين أبان إدلي ريش شيخ موسى إن الرجال كومولي يمو ينا وحنا دوكو كسومرين مال شي هذا ما ترى هبابسك halluminta majara habaabiska sidii jilbiskii iyo abeeskii jiridaha la isugu kaa marayo xarkihii muusaan uu idinla soo baxaynaa ku jajabiya markaa warha orod daraanina ha orod daraanina orod daraanta ama marka aad talax gawdo ee orod dari kugu dhacdo waa goorma waa markaad noqoto awr dabar la-aan dhacay waxa cuna dugaaga markaad noqoto hashii oo geeleega diidaa geel gala ku roortaa labadaba dab laga saar waxyaabahay seegta markay kugu dhacdo jeedkayga hadalkayga iyo hugunkayga rag baan u hafinayaa dhagahoodu ha maqlaan qalbigoodana ha u daadajiyaane duur xul baan uga jeedaa midhkayga istaba qabo maanta neefkii xoolaha shalay kuu sheegayaan kulahaa shilinta dhegta ka saaran بعد ما عسنا إنا اللقطة موسى وشلين تبعي اللقطة دم قلقينا وحبا يتقبل يزور ريبين با ملع الله ولا تبتشي هنا متشينا حتى الله ما هي لابد متشوت الناف في هوقات لا هيد حتى الله ما هي لابد يدبر الله ما هي waxaan si aragu idin leeyahay hadal badan ahaan lagama buuxsho huri waana
waa intii aan ishurayne kablaawe wuu hadhaa kab xume ma hadho doqonkaaga marka aad dabar iyo hoggaan ku xidho ee dibindaabyadiisa darteed aad duurka u geliso ninkii doqonkiisa wata baa ku dilaya ogow armuuso markaa ma garateen doqonkaaga markaad dayacdo kii doqonkiisa wataa ku dilaya hadalku waa kaawy balse waxaan anugu idin leeyahay caanadaa tibe dabadood la qabay ragga horaan ugu soo ararto in badan baan miidyaan ka ararto waxaan idhi reerku ragna way leeyihiin rabbina waa u maqan yahay reerku ragna way leeyihiin oo way ka dhasheen rabbina waa u maqan yahay balse cadow intaad iska eegi lahaydeen idinkii haddaad iscirbajaraysaan codadkiini media annaga dad waayeli noo soo dhiga 70 kor u dhaafay aad iyo aad baan uga xumaa balse waxaan leeyahay shilintii shalay aan sheegaya dhagta idin neefka xoolaha ka saarnayd idinka saarnayd idinkaan xoolo idinku sheegay neef xoolaa ma arage idinkaan xoolo idinku sheegay way dabacsan tahay idin liqdaan lahaa maantana muuse waa idin liqday kuma odhanayo been baad sheegaysaa waxaan se idin leeyahay rag hadday taladood noqoto mid waaxun baa ka go'da tafaraaruqna midba waax baa u go'da sidii neef kii waraabuhu ka dul washiiriyey shaqarad bay rag ka baxaysaa laakiin way riyoonayaan ragga reer sheekh muuse inay ogeyne waase waxaanse kaaga cilaahi waa weliye bille ninka cidlada taagan waa hoosh tallaaba cadde waxaa adeerkiisa muuse axmed jaamac balse in laga badin karo hadduu yahay dabal war eegaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu